marka haddii hadda layna leeyahay biyihiina waa diyaar tacabkiina waa la gelinaya beertuna way soo go'aysaa way ka dhowdahay inaynu niraahno wax laga soo waariday caalam kale baynu dadka u qaybinaynaa in badan waxaan misaal ku soo qaataa in dadka ku nool meelaha jowhar ay ka mid tahay iyo meesha la yidhaahdo goobweyn ee ku taalla jubbada qof halkaa ku nool ama gobolkan oo kaleba haddaad ka soo qaaddo oo baddii leh oo beertii leh oo xoolihii leh in la yidhaahdo samafal baa loo fidinaya waa arrin aad u culus maxaase keenay ayaa isweydiin mudan waxaa keenay waa markii qaranku inaga burburay webigan barnaamijkan hadda laga fulinayo barnaamijka maaraynta iyo kaydinta biyaha webi shabeelle oo baaxaddiisu ay gaadhayso 100 kilomitir waa kanaalkan maxaa la yidhahdaa sabuun miyuu ahaa qolooyinka iyaga waqooyigu waxyaabaha qaar baanan karinoo saabuun baa nuba moodnaa aniga iyo bidhaan marka war bidhaan oo saabuun maahe waa sabuun 100 kilomitir bay baaxaddiisu gaadhaysaa 2.5 million cubic meters liters oo biyo ah ayaa lagu kaydinayaa milyan iyo badh dadka Soomaaliyeed baa waxyeeladii daadadka laga dahaaraya laga ilaalinaya qoysas gaadhaya 360,000 ayaa wax soo saaranaya saameyn intaa ka badanna waxay ku yeelanaysaa ilaa iyo shabeellada hoose iyo magaaladii Muqdisho ahayd 3 milyan ku noolaayeen iyo guud ahaan deegaanada waxaan rabaa inaan sababeeyo haddii dawlad yaridu ama dawladdii burburtay ama nusqaantii dawladda ku jirtay ay sababtay webigii inuuba buuxsamo oo ciid ka buuxsanto oo biyo la waayo oo xilliyada qaar ay ciyaalku kubadda ku ciyaaraan meeshii xinto iyo la oran jiray iyana waan maqlay in maanta soo arki doonaa hadday taasi dhacday waxaa maanta suurto gelisay in 160,000 oo milyan barnaamij gaadhaya la holiyo oo la isku dayo horta waxa suurto geliyay ilaahay ka sokow waa dawladnimada inoo curatay ma aha dawladnimada xamar un ka jirta ee annagu hadda aanu ka soconno ee idinku metelno ee waxa iyana halkaa ku lifaaqan oo ku ladhan ku jirta dawladnimada heerarka kala duwan ee heer Hirshabeelle iyo ilaa heer degmada Jowhar gobol la yiraahdo Togdheer iyo magaalo la yiraahdo Burco waxay la baxaan waa gobolkii raggaan u nahay bay yiraahdaan anigu waxaan rabaa sanad iyo barkii u dambeeyay ilaa sanadkan markii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaruhu iyo hoggaanka dalku uu dagaal markaysa ku dhawaaqay in la cirib tiro khawaarijta markii lagu dhawaaqay gobolka Hirshabeelle run ahaantii gobolkii raggu noqday oo kasoo dumarkuna dab yar aanay shidayn waa gobolkii dagaalka u noqday Hormuud anigu gabayo aan xoogay afray aan meelaha ka tuuray waaba jirto aan masaajidka Cali Guduudiyo ku xuseeyay iyo rag fara badan oo qaali ahaa oo nafta u huray dhiigii iyo deecaankii iyo xoogii iyo xoolihii iyo muruqii aad ku bixiseen inaad iska caabidaan cadowga ayaa maanta 160 milyan oo hordhaca iyo balaayiin daba socda sababay waa ragga hibaad cali dasar iyo ay ka mid ahaayeen allah u naxariiste daraalkii ay geliyeen xoreynta dalka iyo in isaga la mid oo rag iyo dumar bale iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo meel walba ka yimi oo ka tirsanaa ciidamada qalabka siday ayaa u gogol xaaday horumarka maanta aynu higsanayno waayo meel la haysto
oo nabadi ka jirin oo aan dowladi ka jirin cidina maalgashan mayso marka peace dividend baa la yidhaahdaa midhihii nabadda iyo dowladnimada iyo dadaalka baa maanta aada guranaysaan haddaad tihiin reer Shabeelle Soomaalida kalena ay idinla munaafacsan doonto haddii aan isku xidho barnaamijkan maanta halkan aynu u joogno iyo hadafka iyo haykalka dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay nagu hogaaminayaan waxaan rabaa inaan ku xidho barnaamijkan qorshaha qaranka Soomaaliyeed haddii beriga hore aad maqli jirteen qorshaha horumarka qaranka Soomaaliyeed hadda waxaanu u bedelnay qorshaha isbedelka waayo horumarka wadadii hore kuma raadin karno waa inuu transformational change wax la yiraahdo dhaca mas'uulka ka socday hay'adaha ay hadda ka dhawaajiyay isbedel waara oo wax soo saarka bedela ayuu keeni doonaa annagoo taariikhdana xilliyada qaar waxaanu oran jirnay waa markii u horeysay anigu dhowr qolaan la soo shaqeeyay annagoo taariikhdii horena aan diidayn dadaaladii la bilaabay ee ka mid tahay laamigii oo isna arrin weyna ka soo baxaya Muqdisho ee Jowhar imanayo hadda balcad dusheeda soo maraya isna inuu idin soo gaadhayo laba project waaweyn ay yihiin waxaanu qaraynaa oo ka dab qaadanaynaa dadaaladii ka horeeyay kuwa iyana kuwa iyo kuwii ka horeeyay mar dhaweyd oo waxgaradka iyo mas'uuliyiinta dowladda Hirshabeelle ay noo waramayeen dhowr iyo 30 barnaamij oo waaweyn oo gobolka laga fulin jiray bay noo sheegeen waxay noo sheegeen in tuulo hadda aynu soo dhaafnay oo airportka u dhaxaysa halkan oo la yiraahdo Libi inay tahay meelaha ugu looda badan in uu jiri jiray barnaamij la oran jiray muxuu ahaa Rome Soomaaliya oo hilibka lagu naaxin jiray oo lagu kaydin jiray oo lagu dhoofin jiray waxaynu ognahay isnay waxaynu ognahay suufkii waxaynu ognahay Hirshabeellada guud markaynu ka hadalno daaqa iyo arrimaha cilmi baarista lagu sameeyo iyo xaruntii u weyneyd horta dadkii waxa samaystay baynu nahay xilli aan saa u fogeyn dadkii samaystay baynu nahay dad weligood baahnaa ma nihin markaan qaranku jirinna xoolaheenu way nagu filnaayeen duruuftii markaa suurto gelisay waxay ahayd isku duubni Soomaaliyeed iyo dowladnimo la wada wadaago waa intaan ciinka daaqin ee lagu kala huleelin wasiir Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in aqoonta beriga jirtay aanay ka badnayn tan maanta jirta in horumarka saynisku uu sameeyay aanu dhaafsiisnayn tan maanta jirta in inta Soomaaliya maanta PhD haysata ama ku takhasustay maareynta iyo maamulka iyo wax soo saarku aanay ka yarayn intii beriga jirtay ragga iyo hablaha beriga maareynaya arrimahan oo qaarkood aan la sheekaystay sida Allah u naxariistay Cali Khaliif oo kale niman Soomaaliyeed oo inta geela laga keenay jaamacad la geliyay la dhoofiyo soo noqday bay ahaayeen horta samada kama soo dhicin waxaan ku niyadsanahay oo aaminsanahay haddii bulshada Soomaaliyeed iyo dawladoodu ay iskaashadaan inaynu dalkan isbedel ku keeni karno waxaad ogsoon tihiin guusha laga keenay deyn cafinta in badan baad maqlayseen oday baa beri dhoofo Sacuudiga iyo miyahayd carabaha soo shaqo tagayo wax la yiri inta soo dirham baa lagu siinaya hadaad shaqeyso 30 cisho wareer dirhamka garan maayo buu yiri bal sabeena igu bedel sabeeno marka deyn cafintan aad maqashaan ee la idinku dawqiyay baan rabna inaan idin sheegno bal waxay tahay horta deyn cafintu barnaamijkan oo 500 jibaaran bay dhalaysaa waxay dhalaysaa wadooyinka oo la dhiso waxay dhalaysaa kanaalada iyo biyo xidheennada iyo beeraha oo balaayin dollar la geliyo sidii beriga horeba loo geliyay
waxay dhalaysaa dhaqaalaheennoo isbedela lacagaha ay ina siinayaan beesha caalamku beeraley idinkoo kale ah baa laga soo qaadaa geeda ugama baxdo cashuurta qofka wax beerta la saaray baa laynoo keenaa war soomaalidu beriga hore iyadaba dalka wax tari jirtee markaan angoole iyo adduunka soo maray iyo meelaha mosambique iyo waxay yidhaahdeen war sooma ihidin kuwii berigii aanu gobonimo dirarka ku jirnay na xoreeyey horta inaynu kuwiinaho weli nool nahay adduunku hadda wuu gaadhay oo sanadkan ayaama ka bacdi mala waaba dhowr cisho ka bacdi soomaaliya waxay hogaamin doontaa oo qayb ka noqon doontaa security councilka waa meelihii dacwadeena la geyn jiray meelihii laynagu falaqayn jiray duruufteenna adag ayaynu hoggaankeeda qabsan doonaa waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxaa halkan fadhiya oo ila socda ma aha wasiiradii oo keliya waa khuburadii iyo cilmi baadhayaashii u igmanaa inay baadi goobaan xulul waarta u keenaan ka baaraan degaan cilmi baadhis ku sameeyaan sidii cuntayarida soomaaliyeed wax looga qaban lahaa malahay haddii jawhar iyo inta xamar u dhexaysa la beero ayaaba dadka ku filan arrintaasi laakiin tacab bay u baahan tahay siyaasad bay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay intiina maanta guul baynu ka gaadhnay hadalka idinku dheerayn maayo waxaa kanalkan wax ka dhisay haddii aan taariikhda aanan khaldaynin qolo kuuriyana baa la yidhi maaqa labada tay ahayde ra-iisul wasaaraheenni hadda maanta kuuriyuu joogaa qaar baa ilaacadda waxay la soo istaagayaan war maxaad la safartaan war haddaan la safrin ma halkanaynu faqri isla hor joognaa waa la safrayaa adduunkaa wax laga soo dhicinayaa adduunkaa waxa laga soo helayaa suuqii sisintan quruxda badan ee labada kalar leh ee maanta aanu arkayna loo iibgeyn lahaa nimankaa carbeedee saxaaraha ku nool baa lo-dii hadda aynu soo dhaafnay intaynu naaxino aynu u dhoofinaynaa adhigeennii aynu dhowrka milyan dhoofin jirnay baynu rabnaa 50 milyan inaynu dhoofino adduunka waxa lagu safrayaa waa intaa horumarka Soomaaliyeed wuxuu ku xidhan yahay iyadoo wartashata iyadoo adduun weynaha si sharfan oo karaamo leh oo wax isweydaarsi quman leh kula noolaata hadalkeedu ku dheerayn maayo magaaladaanu galaynaa oo ilaa iyo mataqaana webigii baanu soo eegaynaa waxaan rabaa inaan madaxweyne Cali Guudlaawe u mahad celiyo sida mataqaana gobonimada uu noo soo dhaweeyay iyo doorkii uu ka qaatay hogaaminta dagaalkii lagu xoreynayay deegaankan marka uu challenge gareeyo wuxuu yiri war hadda maalin iyo labad nala joogaysaane bal kaakigaaga soo tolo oo aan dhulkii ku soo marsiyo taana waan kaaga ballan qaadayaa inaan soo noqdo baareeye iyo bidhaana haday soo raacayaan waxaan u maleynayaa iyana waa iman doonaan madaxweyne waad mahadsan tahay